Faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa xarig Jimcihii magaalada Jowhar loogu geystay wariye Shariif Shuuriye oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle, kaas oo sabab la yaab leh loo xiray. Shariif oo ka soo jeeda beesha Jareerweyne ayaa xabsiga la dhigay kadib markii uu guursaday gabar beesha Xawaadle u dhalatay sida ay sheegeen eheladiisa iyo saaxiibadiisa ku dhow. Ciidamo ayaa la sheegay in ay tageen gurigiisa kadibna ay soo xireen iyagoo ku qasbay in uu furo gabadha balse uu ka biyo diiday, taasoo keentay in uu ku haydo xabsi. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Hirshabelle Cabdishakuur Shaasha oo isku beel yihiin wariyaha ayaa cambaareeyay xarigiisa. Waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay haybsooc dartiis in loo beegsado muwaadin aan waxba galabsan. Waxaan aad uga xumahay in rag siyaasiyiin ah oo xilka haya Hirshabelle kana soo jeeda beesha Xawaadle ay horkacayaan xariga miskiinkan iyo marwadiisa loo geystay. Wariye Shariif Shuuriye Xaashi waxaa loo xiray. Sidee ayaad u guursan kartaa gabar beesha Xawaadle ah adigoo ah beesha Jareerweyne? Waxaase ayaan darro ah in dad diin, Soomaalinimo iyo dhaqanba nala sheeganaya ay weli wadaan ficillo markaasi faquuq ah, ayuu qoraalka markaasi uu soo saaray uu ku sheegay wasiir ku-xigeenka. Sidoo kale waxa uu sii raaciyay Shariif maanta haddii uu ahaan lahaa wariyaqab aan Soomaali ahayn, cid markaasi ku dheganaan lahayd ma jirto, balse isaga iyo xaaskiisa waxay xabsi ugu jiraan. Gabadha fur ama xabsi ayaad markaasi ku jiraysaa. Shaasha ayaa sidoo kale fariin u diray hoggaanka Hirshabelle, waxa uu ugu baaqay inay soo farageliyaan arrintan si looga hortago iska horkeenida bulshada deegaanka. Waxaan madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Xagar Dabageed aan ka codsanayaa in arrintan Shariif ay soo farageliyaan, xaqana ay garab istaagaan lamaanaha isjecelna ee isguursadayna ay markaasi badbaadadooda qayb ka noqdaan, ayuu mar kale sii raaciyay wasiir Shaasha. Arrintan ayaa dhalisay hadal hayn xooggan, waxaana si aad ah markaasi loogu falanqeynayaa baraha bulshada iyadoo inta badan dadka ay ka xumaadeen xariga lagula markaasi dhaqaaqay.